magacayga waxa weeyaan Abdullah Maxamed sababtii uu kaliftay tahriibka waxa waaye dhibaatada badan oo dalka ka jirta oo sida waxbarasho la'aanta oo kale bay u kaliftay saa hooyaday iyo walaalay u caawin lahaa oo wax sabab badan oo kale aan haysan markaa taasay u kaliftay ma waalidku ma sheegin aan ka qariyay uma sheegin aan kala asxaabtu way loogeed asxaabtay oo ku wada jirnay oo qaar hadda waa tageen oo xagga ay joogaan oo Suudaan bay joogaan ku xiran yihiin 220 oo xagna laga kaxaynaya wax kala bixin meesha kabacdi waxa aadaysaa Bosasso oo lacagta maray ka qaataan doontay hore ka saarayaan doonta waxa ku raacaysaa ilaa 100 meelaha 150 meelahaas qof waxa rabayna aado Switzerland ilaa markaa doontii ay noo diyaarsanto asdaan raacba waxnoo yimi bali qabtaaniga dhowr waxa la qabtaa saa aniga iyo waxa la qabtay laba gabdhood iyo wiil intii kale waa baxsteen waa tageen kale dadka waxay qabilaan aniga de qof lumay hadana la soo helay oo kale bay ka dhigantaa ya waxay tahay xagga markay ayna de way ka raali galay wixii hore oo dhan kale markii hore de dadku waa iska murugiga wax iska dareemay laakiin wixii inta ka dambeeyay caadi ah noqday maya lagama yaabo tina raadi waa ogeene maya lagama yaabo inaan ku noqdo tahriib haddaan baxo de kale reerku way walwalayaan haddaan baxo kale de way walwalayaan ayagana de way dhibsanayaan mar labaad inaan baxo marka hadda waxaan doonayaa inaan iska joogo oo aan noqdo de caadi oo shaqaysto oo wax barto oo future dambe yeesho oo maxay tahay horumar gaar iyo guul aan doonayaa